السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إسلام دمانتين بصاحب يال كسر هذا يوتيوب شانل كنا مسكح كبير فشيال فضلا عندي نوع صوت سبسكرايب صار سينا شير قري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إسلام دمانتين بأخياري ما أنت واحد نسي قد بينا يا قصة طبعا هذا قد شيء ندون وينها وكذا عضي ذلك الروشكا sidaas waxay ku saabsan tahay nin u dhashay dalka Ruushka dabcan maxkamad oo xukun ku riday nin karsaday hilib saddex nin oo ay saaxiib ahaayeen inta kalena qawajiyaal ku ritay nin u dhashay dalka Ruushka ayaa waxa uu dilay saddex nin oo ay saaxiib ahaayeen iyadoo la sheegay dilka kadib inuu hilibkooda karsaday qaarna ku ritay talaagad ninkan oo lagu magacaabi jiray Idod wuxuu jiraa 51 sano waxaana ka soo jeedaa dabcan gobol lagu magacaabo Arkhangelsk oo ku taala waqooyi galbeed Oblast waxa lagu eedeeyay ninkan inuu rag saaxiibadiisa uu dilay isla markaana dabcan intuu jarjaray hilibkooda qaybna karsaday qaybna talaad ku riday sanadka markuu ahaa 2016 ilaa 2017 u dhaxaysay ninkan oo loogu yeero cannibal wuxuu qirtay inuu toorey ku dilay saaxiibadiis oo ahaan kala jiray 59 43 jir iyo 34 jir arrintan ayaa dhacday xilli ay cabsanaayeen dhamaantood ninkan ayaa dhibanayaasha oo magacyadooda aan soo bandhigin hilibkooda jarjaray isagoo inta uu doonayana ka kaydsaday dabcan inta kalena qaarna uu ka cunay qaarna uu ku riday wabi meesha kaaga dhawaa ugu dambeynta maxkamad sare ee dalka Ruushka ayaa ninka dabcan soo horstaajiyay waxaana lagu xukumay xabsi daayin walow raafaano badan qaatay haddana ugu dambeyntii waxa lagu xukumay xabsi daayin aad baad u mahadsantahay fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar siina share garee